السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر بعد كورس HTML CSS كورس وره برشة وب development كورس حتى قادم دونتا إلى أفر خبرات أو تلاقي introduction to HTML introduction to CSS سير كل قادم دونتا CSS HTML أو سلسلة أو إنه كل سدونا project سير كل قادم دونتا qaabka website aad samaysay aad internet aad u gelin lahayd course-ka waxaad ku qaadan doontaa 5 project oo kala ah project-yada soo socda project-ii hore course-ka waxaan ku qaadan doonaa website-kan oo ah website aad iyo aad u yar laakiin aynu ku sharxi doono qayb waliba oo markaas ku saabsan HTML-ka soo kaliya website-kan waxaan ku dhisi doonaa HTML-ka inagoo markaa dhisi doono wajahada hore sidoo kale isticmaali doono style yar sidoo kale website-kan waxaan la isticmaali doonaa CSS kadibna waxaan ka dhigi doonaa website responsive ah oo ka soo muuqan karaya mobile-ka iyo sidoo kale laptop-ka website-kan markaynu dhisno kadib waxaan dhisaynaa blog website aynu kaliya ku dhisi doonaa HTML-ka markaasi waxaan samayn doonaa blog website-kan oo markaa u jeedaan qaabka uu samaysan yahay waa blog website kadib markaynu qaadano blog website-kan waxaynu markaa qaadan doonaa project-yan yar project-yan oo u talagalnay inaan ku fahanno wax walba u baahan tahay inaad ka fahanto CSS-ka haddii noqon lahayd animation-iska oo dhaqdhaqaaqa sidoo kale waxa uu talagalnay waxyaalo kale oo aad u badan oo ku saabsan CSS-ka oo aad ku baran doonto project-yan gudihiisa kadib waxaanu baran doonaa forms-ka sida loo sameeyo marka la isticmaalayo HTML-ka waxaan samayn doonaa sign up iyo sign in project oo aan markaasi labadooda isku xiri doono saa u jeedaan labadooda waa isku xiran yihiin waxaan markaa arki doonaa sida forms-kan qoraalada gudaha loo soo muujiyo iyo wixii la mid ah kadib markaynu dhammayno project-yadii yaryara aynu ku soo qaadanay HTML-ka iyo sidoo kale CSS-ka aynu ku soo sharaxnay waxaan u gudbaynaa project-yeena u weyn ee markaasi course-keena qaybtii saddexaad waxaan ku qaadan doonaa real estate website oo ah website-kan aad u jeedaan oo ah website dhammaystiran oo bilow ilaa dhammaad aynu ku sharxi doono HTML iyo sidoo kale CSS sidoo kale website-kan waa responsive oo laga wado inuu ka soo muuqan karo meel walba ama shaashad walba qofka isticmaalayo haddii noqon lahayd shaashadaha MacBook oo ah shaashadaha laptop-yada Apple saa u jeedaan MacBook waxa uu soo muuqanayaa si markaasi aad u sareysa oo markaasi aad u qurux badan sidoo kale shaashadaha kale sida tablet oo kale ama iPad-ka haddii aad u taqaanid waxa uu soo muuqanayaa si aad u wanaagsan saad u jeedaan sidoo kale shaashadaha ma ka marna shaashadaha mobilada wuxuu markaas ugu soo muuqan doonaa si wacan waxaana markaas samayn doonaa website-kan oo ah project-ii ugu dambeeyay course-keena marka haddii aad doonaysid inaad baratid HTML CSS course-kan waa course-kii ugu wacnaa ee aad qaadan lahayd marka ku soo dhawaada course-keeni HTML CSS